The discomfort that you're manufacturing as straight white Christians living in the United States is the same discomfort that Muslims, people of Islamic descent, brown people, black people, people who speak Spanish. Cadaankii waddankan Mareykanka ayaa si toos ah u fahmay shaxda ayaga oo waliba sidoo kale qolooyinka kale oo Cunsuriyinta ahaa u caqli celinayo oogana sheekeynayo waxyaabaha dhaatada iyo waliba sidoo kale cadeymaha wato oo ku aadan waxan la generate gareeyay oo sidoo kale loo ekeysiyay in Muslimiinta ee Mareykanka qabsadeen waxaa la sheegay Mareykanka in qolooyinkan Cunsuriyinta ah ay sidoo kale ay sheegeen ayaa ognahay waliba bilooyinkii ugu dambeeyay hadeer la soo dhaafay waagi Donald Trump uu ku guuleystay xilka madaxtinimo markiisa labaad ilaa iyo hadda ay wadaan kiiskan ah in ay Muslimiinta ka dawadaan waddanka Mareykanka la wareegeen wayna qabsadeen iyo waxyaabo noocaas ayaan ognahay qolooyinkan Cunsuriyinta ah waxaa soo baxay dad ayaga cadaan la ah native la ah sidoo kale dadkii waddankan Mareykanka native-ka lagu magacaabo ama mulkiilayaasha waddankan Mareykanka markii laga tago kuwa badan oo sidoo kale inta badan Mareykanka ognahay inay dad isku yimaadeen ay yihiin wadamo kala imaadeen Europe ugu badan ayaa waxaan ognahay in ay sidoo kale waddankan Mareykanka ay ku nool yihiin dad ayaga native ah oo aanan rabin dhaqamada noocan ah in ay faafiyaan qolooyin Cunsuriyiin ah oo waddankan Mareykanka ay yimaadeen sidoo kale la qarameeyay dhalashada Mareykanka loo jiray xitaa badankood aan Mareykanka ku dhalan oo koofiyad yar u badan Jack Lang Nick Shirley ay sidoo kale ay kamid yihiin iyo waliba kuwa kale oo odayaal ah oo social media iyo waliba sidoo kale FBI-da iyo ICE ka tirsan ololahan in ICE la aas laftirkooda Immigration and Customs Enforcement dib u nooleyn lagu sameeyo sidoo kale loo taageero Soomaalida ee ayaga ka dambeeyay qolooyinkan Cunsuriyinta ah sabab la xiriiro nacayb loo qabo dadka Muslimiinta ah Soomaalida inay assimilationka ay diiday ama ay ku milanto Mareykanka intiisa kale ee sidoo kale micnaha amarada dadka cadaanka ah ee Soomaalida ay diiday Soomaalida sidoo kale in ay diideen in xitaa ay la assimilate gareeyaan dhaqanka waddankan Mareykanka diinta xataa qaar Muslimiin ahaa oo Soomaali ah oo gaaloobay way loo heli waayay qaar nagu haysta jiro way loo heli waayay dad Soomaali ah oo gaala ah way loo heli waayay Somali Christian community loo heli waayay waddankan Mareykanka intaas oo dhan ayaa civilization siineynay kaniisadihii waddankan Mareykanka oo dhan ayaa soo dhoofiyay Soomaalida markii uu waddankooda ka burburay waxay ay ku sasabanayeen wuxuu inay diintooda qaataan in ay diinta ka baxaan in dhaqankii ay ka tagaan balse Soomaalida ayaa waxaasi aan dhag u dhigin oo sidoo kale aan ognahay in xitaa heer ay gaareen museum ama matxaf iyo waliba meelal iskugu imaado maalmo Soomaalida gaar u ah dabaaldegyo sidoo kale ee magaalada Minneapolis iskugu yimaadeen aan ognahay gobollo badan oo Virginia ay kamid tahay Soomaalida 1991kii in la kala geeyay balse hadda Minnesota iskugu wada imaan sidoo kale xilal ay uga tartamaya xitaa qaar ku dhashay Washington DC oo caasimada waddankan Mareykanka meesha uu ku yaala aqalka cad iyo Capitol Hill oo ah golaha baarlamaanka Congress Mareykanka iyo Senate-ka nin ku dhashay oo waxa jiro mayor ugu tartamahayay bilihii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay inuu noqdo mayorka magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo waxa jiro Umar Faatax sidoo kale qaar badan oo kamid ah oo sidoo kale Soomaalida kamid ah Ilhaan Umar xitaa ay ku jirto waxa jiro gobolka Virginia ka yimid oo imaaday gobolkan Minnesota si ay Soomaalidooda kale u la midoobaan marka dadka Soomaalida waxa lagu nacay ugu weyn ayaana ahaa grouping in ay sameeyaan is urursi balse dhaatada hadda ay soo gudbin rabo ma aha shaqana kuma laha waxa macnaha ay qolooyinka Cunsuriyinta Soomaalida iyo Muslimiinta ka faafiyeen oo ah in la naco dadka Islaamka dadka Soomaalida sidoo kale la naco sababtoo ah waddankan ay la wareegayaan ama waxay sameynayaan take over haweeneydan waxay kamid tahay dadka cadaanka ah oo sidoo kale ololahan wado lagu joojinayo nacaybka Muslimiinta iyo Soomaalida loo qabo oo ah dadka in lagu shaabadeeyo ama lagu macnaha ay sheegay sidoo kale eedeeyo in Muslimiin ay waddankan Mareykanka la wareegayaan oo in laga gaaro ama laga qabto ay tahay iyo sida ay wax u dhigtay statistical soo gudbiyay xitaa waxa ku jirto Muslimiinta total markii la ururiyay inaysan xitaa 2% aysan dhannayn waddankan Mareykanka ilaa 450 milyan hadeer ku sii dhow oo sidoo kale macnaha ishay wali growing-ka ah si socdo waxa la sheegay ama dhaatada ku xusan cadeymo ay tusi doono in Muslimiinta ay ka yihiin only 1% boqolkiiba hal ay ka yihiin population-ka intaas dhan Wow, you guys have some very strong opinions about Muslims in the United States of America, and I just need to share a few facts with you because y'all keep claiming that Sharia law is coming, and I just found out too that Sharia means law, so we're saying
law. So you think that Sharia is coming to this country and that Muslims are trying to take over the nation. And that's not true. You're being misled by propaganda. Donald Trump and this administration is pushing this lie. Let me show you some statistics. Okay. I asked how many Hindus are in the United States. About 0.7 to 1% of the total U.S. adult population. Those are Hindus. Jewish people, roughly 2% of the U.S. population. So there's that. Muslims in the United States, 1.3%. They're 1.3% of the population. Wait, how about how many Christians are in the United States? A whopping 62 to 69%. Where are the Muslims taking over? Also, these are the 5 pillars of Islam. Shahada, the public profession and declaration of faith. Sounds like something the Christian religion has. Salah, ritual prayers performed facing Mecca 5 times each day. Christians pray every day. Supposed to. Zakat, apologies if I'm mispronouncing these. Zakat, giving a set percentage of one's accumulated wealth to charity and the poor. So tithing, like Christianity. Saum, fasting from dawn until sunset during the holy month of Ramadan. So, like the Catholic Easter time. And Hajj, making the sacred pilgrimage to the holy city of Mecca at least once in a lifetime if physically and financially able. Kind of sounds like birthright citizenship for Jewish people, and also if Christians go visit the Holy Land. The discomfort that you're manufacturing as straight white Christians living in the United States is the same discomfort that Muslims, people of Islamic descent, brown people, black people, people who speak Spanish, that's the daily discomfort they've felt their entire lives in the United States. So if you truly believe in what America stands for, that means that there's room for all of these people. Wake up. sida arkaysaan dadkii cadaanka ahaa waxay ku baraarugeen in waxyaabahan ay ayaga laga faafiyay oo la dhahay muslimiinta naca ee wadanka qabsanayaan in propaganda ay tahay oo wax aan waxba ka jirin uu yahay kadib markii ay baaritaan ay sameeyeen dheer oo ay ku ogaanayaan populationka gobolkan Minnesota iyo guud ahaan Mareykanka oo dhan in aysan macnaha dhab ahayn muslimiinta inay la wareegayaan wadankan Mareykanka in sidoo kale Sharia law sanka la iska gelinayo oo xoog dadka ku qaata leeyahay waxa si oo dhan dadka faafinaya aysan ayaga ahayn ayna raali ka ahayn waxa taas si dheer in xitaa shan tiro islaamka ay macnaha ayada oo qaab English dadkoodii ugu sheegayaan ayaga oo sidoo kale u fasirayo waxa ay ka dhigan yihiin shanta tiir ee islaamka in nacaybkan uu sidoo kale islaamka ku jirin ama uu ku salaysneen in waxyaabaha la sheegayo ay tahay ka badbadis iyo nacayb ay faafinayaan qolooyinka koofiyad yarta ah ee iska dhigayeen ay Christian yihiin balse aan ahayn asalkooda markii la baaray la ogaaday inay koofiyad yar yihiin Soomaalidana u dan leeyihiin in ay ka hor istaagaan horumarka iyo furnaanta iyo ilbaxnimada iyo waxa ay ka wadaan Mareykanka hadii ay ganacsi noqoto hadii ay noqoto xilal u soo istaagaan ayaga u doodahay diinta islaamka sidoo kalena badinayo xubnaha Mareykanka Congress-ka iyo Senate ka tirsan ee muslimiinta ah sidoo kalena ay nolosha ku adkaanayso qolooyinka koofiyad yarta hadii Senate-ka iyo baarlamaanka Congress-ka Mareykanka ay muslimiin u bataan lala qaybsanayo awoodii ee Mareykanka ku lahaayeen sidoo kale ay daciifayso iyo waxyaabahaasi oo dhan fadlan muuqaalku soo gaarnay wixii fikirkaada ah nagu soo biir hadaan ugu cusub tahay